wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare oo sheegay inuu fashilmay imtixaankii dowliga ahaa ee maamul goboleedyada Puntland asagoo hadalkiisa wata wuxuu yiri imtixaan waa fashilmay saacadan la joogo Puntland imtixaan qaadayso waa fashilmay wadamada dariska waa ka fashilmay adduunku waa ka fashilmay laakiin inta aan fashilaantu dhawaana fiirey 104 goobood imtixaan lagu qaaday in hal kaliya waxay ka yartaa 1% fashilku runtii dadaal weyn aan gelinay laakiin waxa jeclaan lahaa inay suuragal idii aan lahayd dadka imtixaanka diyaaray ee qaaday ee kormeeray hadaa arki lahayd shucuurtooda inay idinka xanuun badnaayeen maahan idinka ma xanuun yareen go'aankan la gaaray maxaa dib loogu dhigi waayay wax yar waa tala fiican waa tala la isku soo qaaday oo miiska la dhigay la rogrogay maaha Cabdullaahi Goodax kaliya wax go'aanka gaaray baada waxbarashada cidna kama maqnayn